halkan waa warshad mucjiso ah oo loogu talagalay dhimista miisaanka. haweenka miisaankoodu culus yahay markay galaan waxay ilbiriqsi gudihiis ku soo baxayaan iyagoo ah gabdho dhuudhuuban oo qurux badan. ninkan dhuuban ayaa isna gacalisadiisa u keenay halkan si ay isaga dhinto miisaanka. markuu arkay natiijada cajiibka ah ee gabdhaha soo baxayana wuxuu ku sii adkaystay go'aankiisii ahaa inay caatowdo. gambaleelkii safka ayaa dhacay, gabadhiina madaxa ayay la gashay albaabka iyadoo aan dib u soo eegin. isla markaas gabadh soo jiidasho leh oo kabo dhaadheer wadata ayaa agmartay ninkii si degdeg ah ayuu u dabagalay si uu u fiirsado, balse isagoo mashquulsan ayuu si lama filaan ah wiishka ugu raacay oo uu u dhex galay qaybta shaqada ee warshada. wuxuuna go'aansaday inuu daawado sida haweenka loo caateeyo. tallaabada koowaad, haweenka ayaa la gelinayaa haamo ay ka buuxaan dareere jaalle ah, waxaana madaxa loo gelinayaa tuubooyin si waali ah u ruxaya baruurta jirka ku jirta. tallaabada xigta, waxay fadhiisanayaan mashiin u eg foorno weyn iyagoo u wareegaya kor iyo hoos sida digaag la dubayo oo kale. markii ay soo baxeenna shaqaalaha ayaa ku buufinaya dawo miisaanka dhimaysa. ugu dambayntii waxay gelayaan qolal yaryar oo gaar ah. isla marka albaabku xirmo, tuubooyin waaweyn oo kor ka soo degaya ayaa jirka ka nuugaya baruurta oo dhan si degdeg ah. ilbiriqsi kadib albaabada ayaa furmay, waxaana soo baxaya gabdho dhuudhuuban oo quruxdoodu ay soo jiidasho leedahay. ninkii ayaa si degdeg ah u aaday si uu u eego gacalisadiisa, balse wuu ka dhex waayey gabdhahaas. dadkii markii ay tageen, gacalisadiisii ayaa soo baxday iyadoo sidii hore u cayilan. show gabadhu halkii ay miisaanka dhimi lahayd, jikada dambe ayay aaday oo macmacaan ayay iska cunaysay. ninkii oo aad u xanaaqsan ayaa boorsadii ku tuuray oo go'aansaday inuu iskaga tago.